Magaalo lagu yaqaanay degnaanta iyo quruxda ayaa waxaa ka bilaabatay cabsi ka soo dhex baxday mugdiga. Waxaa habeen kasta bilaabay inuu soo baxo bahal weyn oo aad u cabsi badan. Indhihiisu waxay ahaayeen kuwo guduudan, waxaana ka soo urayay bakhti. Asaga habeen kasta intuu soo baxo ayuu qof kasta u arka oo habeenkaas nasiib xun waddada ka qaadan jiray oo si aad u xun u cuni jiray markaas. Markii uu dilka bilaabanayay, xoogaa dadan saa u badnayn ayaa markaasi la qaatay. Cadna ma dareemin, laakiin dilkii wuu batay. Dad badan ayaa la waayay. Markaas ayay dadku fahmeen in waxaani bahal uu ka dambeeyo. Habeenkiina markaasi guryahooda kama aysan soo bixi jirin. Qoraxda markay dhacdaba qof kasta gurigiisa ayuu isku xireeyay. Waddadii markaasi magaalada oo dad iyo gaariyaalba ka buuxi jirtay hadda waxay noqotay mid aamusan. Kaliyaata waxaa yeeraya codka bahalka qaylinayo iyo sidoo kale qofka habeenkaas nasiib daran oo uu bahalka gacanta ku dhigo. Markaasi dawladda waxay sameeyaan bay garan waayeen. Ciidamo badan ayay u direen, laakiin mid kasta waa la cunayay oo bahalkaas ayay cunto u noqdeen. Markaasi way isdhiibeen. Kaliyaata waxa la qabanaya waxay noqotay inay dhuuntaan. Bahalkii magaalada wuu wareegay. Markii uu qofba waayay ayuu wuxuu dib ugu laabtay kayntii ka dhoweyd magaalada. Bartaas ayuu wuxuu si kadis kula kulmay dad markaasi meesha u joogay inay ku caweeyaan. Dadkaas waxay ka yimaadeen meel aan saa uga fogeyn magaalada, laakiin dadka magaalada degan ma aysan ahayn. Nin ka mid ah dadkii markaasi meesha joogay ayaa wuxuu isku dayay inuu gooni uga baxo si uu xaajadiisa u soo guto, laakiin meeshii markuu istaagay oo sureerkii iska siibayba bahalka ayaa ku soo booday. Si bilaa naxariisa ayuu qaarka dambe kaga gooyay. Ninkii wuxuu damcay inuu qayliyo, laakiin bahalka ayaa ku soo booday haddana afka ayuu qabtay, qalka hoosena wuu ka jabiyay. Dadkii kale oo meesha ku caweynayay ninkii la socday inuusan soo laaban ma aysan dareemin, sababtaa waxay ahaayeen dad badan. Sidaas dartood iyagoo iska wada seexdeen ilaa uu bahalka si tartiiba meeshii u soo galay uu hadba qof isagoo hurdo jiidanayay. Cidna weli ma dareemin. Subaxii ayaana sidaas lagu gaaray. Subaxii markii la gaaray, dadkii markaas ayay garteen waxa khaldan. Waxaa laga dilay ilaa 12 qof, waxaana ka haray intaasoo kale. Markaasi waxaa ku dhex jiray dadka wiil la yiraahdo Amiir oo markaasi haddaba 20kii galay. Wiilkaasi saaxiibadiis ayaa ku soo qasbay inuu meesha yimaado. Hadda markii uu arkay dhibaatadan iyo dhiigan agagaarkooda ahna aad iyo aad ayuu uga sii carooday. Dadkii meesha joogay waxay go'aansadeen inay isla maanta meesha ka guuraan si uusan bahalka habeenkii ugu soo laaban. Markaasna alaabta ayay waxay bilaabeen inay gurtaan, laakiin alaabtu waxay ahayd mid aad u tiro badan. Iyagana kuwa iimaan la ayay ahaayeen, mana aysan rabin hal weel xataa inay ka tagaan. Markaas alaabtii iyagoo guranaya ayuu gabalkii ku dhacay. Markaas ayuuna haddana mar kale bahalkii ku soo baxay. Nasiib wanaag markani way soo jeedeen, waxayna bilaabeen inay kala cararaan, laakiin bahalkii wuxuu bilaabay inuu ceersado isagoo xawli aan inaba caadiyan ku ceersanayo. Hadba qof ayuu la haraa oo dhaawacaa kana sii cararaa isagoo raba inuu dadkoo dhan dilo. Amiiro waxaan oo dhan arkayay ayaa waxaa markaasi uu diiday inuu dhinto isagoona la dagaalamin. Markaasi geed ayuu soo qaatay, wuxuuna ka sameeyay waran. Kadibna warankii afkiisa wuxuu ku shubay dheecaan yara oo uu ka sameeyay markaasi caleemo sun ah. Ugu dambeyn bahalkii wuxuu ku soo jeestay Amiir, markaasna uu ku soo orday. Markii uu ku soo boodi lahaa Amiiran weli meeshiisa ka dhaqaaqin ayuu Amiir intuu waranka qaaday dhuunta ka gashay bahalkii. Bahalkii markaasi wuu qayliyay, xanuun saa'id uu dareemayay dartii, laakiin bahalkani ma uusan ahayn mid bilaa dagaal ku dhimanaya. Amiir wuu farxay, wuxuuna isdhahay waad guulaysatay, laakiin bahalkii oo sii dhimanaya ayaa ku soo booday. Markaasna cidiyihiisii waaweynaa ayuu xabadka ka gashay. Meeshaas ayuuna ku dhacay Amiir. Amiir ma uusan ku xumaanin inuu dhimanayo, sababtaa ugu yaraan wuxuu ka qabtay bahalkani dad badan oo u dili lahaa mustaqbalka. Amiir maydkiisii iyo sidoo kale dadkii la socday iyo bahalka maydkiisiiba habeenkii oo dhan bartaas ayay yaaleen. Subaxii markii la gaaray ayay waxay meesha ugu yimaadeen dad ka yimid magaalada. Markaasi maydkii Amiir oo meesha yaalo iyo asxaabtiisiiba sidoo kalena bahalka oo meesha yaalo. Markaasina waxay ka gureen intii bilaadanka ahayd maydkoodii. Khaladka ay sameeyeenna wuxuu ahaa inay meesha bahalka maydkiisii kaga tageen.